lafaa la soo dhigay buurta dusheeda meelaan xabaalo u dhoweyn sidoo kale waxaa la yidhi meeyarka ama dawladda hoose iyo xabaalaha soo faqay horta waxaas waa xaaraan bir rabadaan baynu ku jirnaa xabaalaha iyo lafaha la sheegayay wax alla waxaan ka ogahay habay yaraatee ma jirto waad gartoo maaha arrintaas horta waa ribo ayaan leeyahay dadka ay afkooda ka soo baxdayba waxaan leeyahay ha la soo caddeeyo lagamana hadhayo taas waa mid tabuurta hawlgal baa laga sameeyey amar warka barasaa baa jooga warqad baa loo qoray booliska iyo annagaba waxa lagu qorayna waxay ahayd hawshaa oo loo fulinayo shaqadan guuda ha la fuliyo meeshuna iga horreysa aniga oo meeshan hadalkeeda iyo ka hawlgalkeedu way iga horreysay waxaan iyada oo cagaf la geliyey meesha oo la calaamadeeyo oo cagaf ay meesha mar gashay hawse ahaatee hakad la geliyey halkii cagafta la geliyey baa waxa laga dhisay guryo cariish ama geejado maalinta dhaweyd waxaa la soo barbar dhigayay shaqo taalla oo markaa socotay ilan bir rabadaan baynu joognaayey may jirin hawshana hore u dhammaatay haddana waxaa la soo dhigayey macani shaqo imika qabsoontay oo dad la burburiyey iyo meydad la soo qoday waxaasina waa xaaraan midna anugu marnaba kama hadhay cidda been halkaa miidiyaha la soo joogsatay ee meyd iyo lafo intay soo saareen la soo joogsatay halkaa ee yidhi meeya ee dawladda hoose iyaa soo faqday waxaan doonayaa caddaynteeda in la keeno waayo waxaa bini'aadanku in la isku xadgudbo maaha arrintaasi wax alle wax ka jiraa ma jiraan lafahaa la waday anugu ma garanayo indhahayguna ma arag oo ilaahay baa igu og meeshana ma tegin soo maad fahmin iyagaa dee caddayni halka ay igu arkeen een ku soo saaray lafaha iyo meydadka iyagaa caddayn waad gar soo maaha arrintaas waa sidaa arrintuna waxay leedahay weji wax looga qabto iyo weji wax looga qaban tan weji wax looga qabto ma lahayne eed bay ahayd eed marka eedda waa in la caddeeyo wixii la nagu eedaynaya maaha bini'aadanka in lagu xadgudbo oo waxaan meesha oolin la dul saaro taasi wax alla wax ka jiray iyo lafaha iyo eedaymaha ay lahayn dawladda hoose soo faqday haba yaraatee ma jirto waana buur dusheed meesha meel xabaalo u dhowna maaha arrintaasina waxa weeye arrin khalad ah oo deylqaaf ah oo gef ah ayaanu arkaano Gesta kale maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi ayaa xaqiijiyay jirtay go'aal ay ka sameeyeen buurta Faaraxyood kaas oo lagu furayay jiingado ka dhisnaa goobtaasi balse aanay jirin xabaalo ay soo faqday cagafta dawladda hoose ee degmada Boorama mid waxa weeyaan waxan miidiyaha la soo dhigay propagandkan iyo beentan ilaa lafuha ay ku jiraan midna waxa weeyaan hawlgal jiingado lagu furay taa jiingadaha lagu furay way jirtaa oo waxay hawlgelin guud oo maamul iyo amar gobol ka soo baxay hadalka sidiisa loo yiraahdo annaguna waxaan nahay amar qaatayaal waad gartoo maaha haba saatee arrintu waxa weeyaan arrin yacni cusub oo markaa bilaabantay iyo arrin hore u jirtay bay kala tahay waxaan iga horreeyay calaamadaynteeda iyo sharciga iyo nidaamkeeduna waa iga horreeyay aniga haddaad gartoo ma ciddi kale munaafaqad ka raadinaysa ma garan karo marka waxa weeyaan hawshaasi waxa weeyaan waa mid waa jiingada midna waa wixii la soo dhigay meesha oo ah kicin iyo xasaasiyad arrin lagu fawdo ah oo been abuura lafo iyo waxa la soo dhigay meydad la soo faqay waxaasina waa kicin iyo been abuur cad oon meel cidna loogu soo gaban oo aniga ayna laygu eedeynay taana waxaan ummadda u cadaynayaa wax alla waxa ka jira inaanay jirin kuwii afkooga ay ka soo baxday iyo haday shacbi tahayba waxa laga doonay